بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aridii kugu haynana waxa kamid ah hay'adda caalamiga ah ee xakamaynta nuclear-ka ayaa daboolka ka qaaday in Iran ay soo saari karto ilaa iyo 10 madax oo hubka nuclear-ka marka la eego uranium-ka ay bacrimisay iyadoo goordhaweydna wadahadal arrimahani ku aadan qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Israa'iil ayaa goordhaweyta shaacisay go'aanka ay ka qaadan doonto ololeeyaasha Falastiin ee saarnaa doonidii ku socotay Gaza ee Israa'iil ay qabsatay. Midowga Yurub ayaa digniin la xiriirta arrintan gaar ahaan dadka saarnaa waxay u jeedisay Israa'iil. wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo xaaladdu sida caawa ay tahayna barnaamijka waan idinkugu haynaa. dacwad kalena Trump oo laga bilaabayo waddanka Mareykanka. Haddaba maxay ku aadan tahay dacwadan? Sidee wax u jiraan? Yaa dacwoonaya? Maxaase lagu haystaa? Xog baan idinkaga haynaa. Dalka Suudaan dagaallo ba'an ayaa lagu soo warramayaa in maanta oo idil ay ka socdeen gobolka Kordofaan halkaasi oo ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka RSF. sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay waa haweeney muddo 20 sano dhakhtar been abuur ah uga shaqaysanaysay waddanka Britain. waxaynu ku bilaabaynaa dalka Suudaan halkaasi oo lagu soo warramayo in dagaallo ba'an ay ka socdaan gobolada la isku yiraahdo Kordofaan iyadoo wararkuna ay sheegayaan in maanta oo idil dagaallo culus oo la isku habeensaday ay ka socdeen magaalada Al Ubayd iyadoo lagu dagaalamayo gacan ku haynta magaaladan istiraatiijiga. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee warbaahintu ay soo tibinayso ayaa waxay sheegayaan in ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaano RSF mar kale weerar ay ku soo qaadeen maanta magaalada Al Ubayd ee gobolka waqooyi ee Kordofaan iyadoo weli aan lahayn tirakoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka. weerarkani waa kii labaad ee magaalada lagu soo qaado muddo 4 maalmood gudahooda waxaana diyaarad doolar ah ay beegsatay xarumo rayid ah maalintii ugu horreysay ee Ciidul Adha. weerarka lagu qaaday caasimadda gobolka waqooyi ee Kordofaan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay socdaan abaabul dagaal iyo dagaalo culus oo ka socda saddexda gobol ee Kordofaan uu ka kooban yahay. kadib markii ciidanka Suudaan ay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ee Khartoum dagaalka u dhaxeeya ciidanka uu hogaamiyo General Al-Burhan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee RSF ayaa u wareegay dhanka galbeed gaar ahaan gobolada waqooyi koonfur iyo galbeedka Kordofaan. wadada badbaadada galbeed ee isku xirta caasimadda Khartoum iyo gobolada Kordofaan ka hor inta aysan ku dhamaanin gobolka Darfur ayaa ah mid aad muhiim ugu ah dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo RSF. ciidanku wuxuu wadadan u arkaa in ay tahay marin muhiim ah oo ay uga gudbi karaan gobolka Darfur halka RSF ay u aragto qad difaac oo hor yaala gobolkan gacanta ay ku hayaan isla markaasna saldhigi ay ku leeyihiin aagagaasi waxaana ay u dalneeyeen in mar kale weerar ay ku qaadi karaan magaalada Khartoum. gobolka galbeedka Kordofaan oo xuduud leh koonfurta Suudaan ama Suudaanta koonfureed ayaa ka kooban ilaa iyo 15 degmo waxaana inta badan ku yaal ceelasha shidaalka ee dalka Suudaan. halkaasina waxaa ka socda dagaaladii ugu cuslaa ee u dhaxeeya ciidanka militariga Suudaan iyo RSF. dagaallo ayaa labada dhinac sidoo kale la sheegayaa in ay si weyn ugu dhex marayaan magaalooyinka Al-Hoy iyo Al-Luhud iyadoo dhowr jeer gacan ku haynta magaalooyinkaasi lala wareegay laakiin dagaallo goosgoosa ayaa soconaya iyadoo RSF si buuxda haatan gacanta ay ugu hayso magaalada. ciidanka Suudaan ayaa sidoo kale ku guuleystay inay ka hortagaan weerar xooggan oo RSF ay ku soo qaaday magaalada Baba Nusa halkaasi oo uu ku yaal saldhigga qaybta 22aad ee ciidanka lugta ee dalkaasi Suudaan. hagaag wixii warar ah ee ku soo kordha dagaalka Suudaanna waynu arki doonaa. iminka waxaynu u gudbaynaa waddankaasi Mareykanka halkaasi oo lagu soo warramayo in qulqulatooyin culus ay ka socdaan magaalada Los Angeles iyadoo la sheegayo in rabshaduhuna ay xoogeysteen inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump halkaasi uu u diray ilaa iyo 2,000 oo ciidamada ilaalada qaranka
haddaba wararkii ugu dambeeyey gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom ayaa daboolka ka qaaday inuu maxkamad la tiigsanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib markii amar uu ku bixiyay in ciidamada ilaalada qaranka loo diro magaalada Los Angeles si loo xakameeyo mudaharaadyada. Newsom ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku yiri isagu waa Donald Trump wuxuu horiyay dab si sharci darro ah ayuuna u federaleeyay ilaalada qaranka. xeerka uu saxiixay wuxuu quseeyaa California waana ka dacwadina ayuu yiri. magaalada Los Angeles ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah waxa ka socda dibadbaxyo rabshado wata oo lagaga soo horjeedo xariga ballaaran ee muhaajiriinta qaanuunka sharci darrada ee ka baxsan halkaasi ku jooga. waxaana la sheegayaa in ay wado hay'adda dawladda u qaabilsan arrimaha soo galootiga. Stephen Miller oo ka mid ah mas'uuliyiinta aqalka cad ayaa mudaharaadyada iyo rabshadaha ku tilmaamay inay yihiin kacdoon, wuxuuna si adag u dhaleeceeyay saldhigga booliiska ee magaalada Los Angeles ninka madaxda ka ah kaas oo diiday inuu ka qayb qaato musaafiriinta muhaajiriinta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar siiyay ilaa iyo 2,000 oo askari oo ka tirsan ilaalada qaranka si loo geeyo magaalada, isagoo ka tallaabay awoodaha uu leeyahay gudoomiyaha gobolka California. sida ay sheegayaan hay'adaha ammaanka 2 askari oo booliis ah ayaa dhaawacmay maalinnimadii shalay, waxaana booliiska isku dayayaan in ay furaan jidka weyn ee magaalada. qayb ka mid ahna mudaharaadyasha ayaa halkaasi ku sugan. warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale soo warinaysa in mudaharaadyasha isku dhaceen booliiska isla markaasna ay ku tuureen dhalooyin holcaya iyo dhagaxaan, waxaana sidoo kale dab la qabsiiyay ugu yaraan 5 gaari oo booliiska uu leeyahay. Trump oo caawa la hadlay dadka wararka fidiya ayaa si adag u difaacay go'aanka ciidamada ilaalada qaranka uu ugu diray magaalada Los Angeles, isagoo sheegaya in gudoomiyaha iyo duqa magaaladu waa si hadalka u dhigay ay ku dhaqmeen qaanuunka mid ka baxsan, isagoo sheegaya inuu awood u leeyahay tilaabooyinka uu qaaday. waa tahay wixii wararaha arrimahaasi ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla ilmo. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. hay'adda atomikada caalamiga ah ee IAEA ayaa waxay sheegaysaa Iran inay awood u leedahay inay soo saarto ilaa iyo 10 madax oo hubka nuclear-ka. waxaan kaloo eegi doonaa wadahadalkii qadka telefoonka ku dhex maray Trump iyo Netanyahu. xagga Gaza aynu ku bilowno halkaasi oo lagu soo waramayo Israa'iil in ay sii wado duqeynta aan kala sooca iyo kala joogsiga lahayn, iyadoo lagu soo waramayo in tan iyo saakay waa berigii in ka badan 50 qof in lagu dilay duqeymo Israa'iil ka fulisay meelo kala duwan oo ka mid ah Mareyka Gaza. xaaladda dhanka bini'aadanimada ayaa ka sii daraysa. dadka la dilayna waxaa ka mid ah dad gargaar doonayay oo tegey goobaha raashinka ay ka qaybanayso hay'adda laga leeyahay waddankaasi Mareykanka. waa hagaag arrimihii ugu dambeeyey ee doonida ku socotay Mareyka Gaza ayaa saarnaayeen ololayaasha arrimaha Falastiin aynu eegno. waxaa la sheegayaa doonidu in ay goor dhaweyta ku soo xiratay dekedda Ashdod, iyadoo wararkuna intaasi ay ku darayaan in Israa'iil ay diyaarisay qaabab kala duwan. waxaan leeyahay arrinta ugu daran waxay tahay dadkan in booliiska lagu wareejin doono. waxaan arrintan ka hadlay Itamar Ben-Gvir oo yiri waxaan u diyaariyay xabsiyo, qof kasta oo ka mid ah xabsi gaaraan gelinayaa buu yiri. lama ogola ayuu yiri in qofna uu helo telefoon, warbaahin lama ogola, isgaarsiin warkeeda ma jirto. sidoo kale wuxuu yiri ha laga qaado wax kasta oo calaamadaha Falastiiniyiinta ay ugu ololeynayaan. waxaa ka mid ah ciidamadihi ay wateen iyo weliba koofiyado, waxyaabo kale oo calanka Falastiin ay ku misawaran yihiin sida fanaanadihii iyo jaakadihii iyo waxaasi oo idil. waxaana la sheegayaa in Israa'iil ay diyaarinayso waa dhanka marka laga eego siyaasadda dadka in la masaafuriyo, inkastoo Ben-Gvir uu doonayo inuu dadkan xabsi geliyo. haddaba wararkii ugu dambeeyay aynu eegno gaar ahaan arrimaha xukuumadda Israa'iil wixii ka soo yeeray. afayeenka xukuumadda Israa'iil David Manser ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu bixiyay in dadkan u ololeynaya arrimaha Falastiin ee saarnaa doonida Madeleine oo ay ku jirto gabadha reer Sweden Greta Thunberg dib loogu celin doono dalalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan. Manser ayaa waxa uu sheegay in habeennimadii xalay Israa'iil la wareegtay doonida Madeleine isla markaasna wax walba ay u dhaceen waa sida dalku dhigaya si degan, wax qasaarana uusan jirin, isla markaasna aanu dhici doonin. wuxuu yiri dekada doonta waxaan u jeedinay dekada Ashdod ee Israa'iil, isagoo sheegaya inay hubinayaan in dadka u ololeeya Falastiin ay helaan cunto iyo biyo ku filan
iyadoo si shakhsi ana loogu celin doono dalalkooda. Afayeenka waxa intaas ku daray in Israa'iil aysan rabin inay xirto dadkan, isagoo sheegay in cutubka ciidamada badda ee qaaska ee Israa'iil ee loo yaqaano Shitat 13 ay waa berigii Isniintii si buuxda doonta ula wareegeen, sida uu qorayo wargeyska Yadicood Taxranood. Doonta Madlin ayaa waxay ka shareecatay jasiiradda Sicilia ee dalkaasi Talyaaniga Axaddii la soo dhaafay, iyadoo u socotay Gaza si ay markaasi u jabiso cunaqabataynta Israa'iil ay ku soo rogtay doonidaasi. Wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan doonidu inay haatan soo gaartay dekedda. Dhanka midowga Yurub haddii aynu eegno, oo haweeney ka tirsan dadka saaran doonidaasi ay xubin ka tahay baarlamaanka midowga Yurub. Haddaba midowga Yurub ayaa afayeen u hadashay, waxa ay ugu baaqday Israa'iil in ay xaqiijiso badqabka xildhibaanad Rima Xasan oo saarneyd doonta gargaarka ee Madlin ee Israa'iil ay la wareegtay. Ilaalinta xildhibaanada meel kastoo ay joogto waa mudnaanta koowaad ee baarlamaanka Yurub, ayay tiri haweeneydaas afayeenka. Waxaana ay ka dalbatay Israa'iil inay xaqiijiso badqabka Rima Xasan. waxaana taasi ay ku dartay waxaan cadaynaynaa walaalkeena ku aadan badbaadada dhammaan xildhibaanada iyo in loola dhaqmo si ixtiraam leh meel walba oo ay joogaan. waxaana ay xustay in markaasi ay tahay arrinta mid ay ka dalbanayaan Israa'iil inay ilaaliso dadkaasi badqabkooda. waa hagaag madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isaguna hadlay intaynu barnaamijkan ku jirnay, waxaana uu sheegayaa inay tahay wax ceeb ah wasidalka u yiri go'doominta Israa'iil ku sameysay marayka Gaza. wuxuu yiri waxaan ku baaqaynaa xabad joojin degdeg ah in laga hirgeliyo marayka Gaza. waxaana markaasi uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah shaqada loogu ogolaado arrimaha gargaarka qaramada midoobay. wuxuu yiri sidoo kale waxaynu ka qabnaa buu yiri walaac qabsashada Israa'iil ay qabsatay shaqaalihii saarnaa iyo samafalayaashii saarnaa doonida Madlin, isagoo sheegaya in ay tahay in la ilaaliyo muwaadiniinta saaran doonidaasi oo in badan oo kamid ah ay u dhasheen waddanka Faransiiska. warkan intaynu barnaamijka ku jirnay ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu soo saaray. waata intaynu barnaamijka ku jirno haddii wax ku soo kordhaan arrinta doonidan waan idin soo gudbin doonaa. laakiin markan balaynu eegno wadahadal goordhowta qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha waddankaasi Maraykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa soo gabagaboobay. waxaana la sheegayaa in arrimo kala duwan labada nin wadahadalkooda telefoonka ay ku yeesheen ay ka wada hadleen. haddaba aynu eegno warbaahinta Maraykanka iyo tan Israa'iil sida arrintan uga waramayso. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa wadahadal socday 40 daqiiqo wuxuu qadka telefoonka kula yeeshay Netanyahu, sida uu qorayo wargeyska Israa'iil Hayom. waxaana saraakiisha aqalka cad ay sheegeen wadahadalka intiisa badan inuu ku aadanaa arrinta Iiraan. telefishinka Kanal 14 oo aad ugu dhow Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo madaxweynaha Maraykanka Trump ay si qoto dheer uga wada hadleen marafka hubka ee nuclearka ee Iiraan xilli wadahadalada u dhaxeeya Washington iyo Tehran ay istaageen. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale waxay soo xigatay ila amni oo sheegaya in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu walwal ka qabay in Maraykanku heshiis uu la gaaro Iiraan. laakiin waxa la leeyahay wadahadalkan waxa uu yimid kadib markii sida hadalka loo dhigay Iiraan ay sheegtay inaysan aqbalayn hindisaha Maraykanka ka yimid ee heshiis lagu gaari karo. raadiyaha militariga Israa'iil ayaa sana war uu tabiyay waxa uu sheegayaa inuu ka soo xigtay ila amni in Netanyahu xilligan uu shir kula jiro laamaha amniga. waxaan laga wada hadlayaa wararka sheegaya Iiraan inay ka soo horjeesatay soo jeedinta Maraykanka. dhinaca kale aqalka cad dadku dhow ayaa waxay sheegayaan in wicitaanka diiradda lagu saaray arrimaha nuclearka Iiraan iyo isku dayga lagu doonayo in lagu gaaro soo jeedin cusub oo ku aadan dagaalka qase in lagu joojiyo. wicitaanka ayaa waxa uu yimid xilli Trump uu doonayo inuu dedejiyo wasi hadalka loo dhigay gaarsiinta gargaarka marayka Gaza, iyadoo la sheegayo in cunaqabatayn iyo gaajo ba'an ay ka jirto halkaasi. xog horey u soo baxday aqalka cad ayaa tilmaamay in Trump uu la hadli doono Netanyahu kadib markii la shaaciyay Iiraan inay ka soo horjeesatay hindisaha Maraykanka ah in heshiis lagu gaaro sida Maraykanku soo jeediyay. Trump ayaa horey waxa uu uga digay Netanyahu in aan la ogolayn in Iiraan uu weerar ku qaado kadib markii wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen. waxaana warku taasi ku daraya in wargeyska The Jerusalem Post ee ka soo baxa Israa'iil uu ka soo xigtay ila xogayaal oo sheegaya in si weyn
maalmaha soo socda loo eegi doono arrimaha la xiriira nuclearka Iran bacdama wadahadallada imika ay cakirmeen Netanyahu waxa leeyahay wuxuu aad u danaynayaa heshiis inuusan dhicin si markaasi Mareykanka qayb uga noqdo duulaan lagu qaado Iran inkastoo Iran arrintaasi ay ka digayso isla arrimahan Iran la xiriira intaan ka bixin hay'adda xakamaynta hubka nuclearka IAEA qaramada midoobe hoos timaada ayaa waxay sheegaysaa suurtagalnimada Iran inay ku guuleysato soo saarista 10 madax oo nuclear ah waxaana hay'addu ay arrintaasi ka qiyaas qaadanaysaa bacriminta iyo kaydinta uraniumka ee Iran ay kaydisay oo leeyahay ilaa iyo 400 kilogram ayuu gaarayaa uraniumkaasi haddaba warbixin amuuraha ay ku aadan waxaa soo jeedinaysa Nimcati Macadin agaasimaha hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomiga ee IAEA magaceeda loo soo gaabiyo Rafael Grossi ayaa maanta sheegay in Iran ay xoojinayso uraniumka heer u dhow samaynta bam nuclear ah Grossi waxa uu yiri waxaan aqoonsanahay 3 goobood oo Iran ku kobcisay uranium isagoo intaasi ku daray in IAEA ay soo gudbin xogta ku saabsan xaaladaha barnaamijka nuclearka Iran Grossi waxa uu hadalkan ka jeediyay bilowga shirgudoonka guddiga maamulayaasha ee hay'adda kaasi oo diiradda saaray barnaamijka nuclearka Iran waxana uu ka dhiibtay aragtidiisa ku saabsan heerka iskaashiga ee hadda ka dhaxeeya Iran iyo hay'adda sida ay wariyeen warbaahinta Iran Grossi waxa uu intaasi ku daray in IAEA ay door muhiim ah ka ciyaarto kaasi oo dhexdhexaad ah marka laga hadlayo mowduucan xasaasiga ah oo adag markii uu ka hadlayay qaar ka mid ah natiijooyinka farsamada Grossi waxa uu yiri sida aad la socotaan IAEA waxay ka heshay raadad uranium ah oo aadanuhu farsameeyay 3 goobood oo aan la shaacin oo ku yaala Iran kuwaasi oo kala ah Ramin Mariwan iyo Turqubzabad kuwaasi oo aan ka helnay marino dheeri ah sanadihii 2019 ilaa 2020 si nasiib darro ah Iran kama aysan jawaabin su'aalihii IAEA waxaana ay ka bixisay jawaabo aan la filaynin oo farsamo ah waxayna sidoo kale isku dayday inay nadiifiso goobahaasi taasi oo carqaladaysay hawlaha xaqiijinta ee hay'adda Grossi waxa uu yiri 3daasi goobood iyo suurtagal ahaan kuwo kale oo la xiriira waxa ay qayb ka ahaayeen barnaamijka nuclearka ee nidaamsan kaasi oo aan la shaacin oo ay Iran fulisay horraantii sanadkii 2000 qaarkoodna waxay ku lug lahaayeen isticmaalka walxan nuclear ah oo aan la shaacin Iran ayaa xaqiijisay in dhawaan ay soo bandhigi doonto soo jeedinteeda ku saabsan heshiiska nuclearka ee ay la leedahay Mareykanka kadib markii ay sheegtay in dalabka Washington uu yahay mid mugdi ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismail Baqa ayaa shir jaraa'id ka sheegay in dhawaan ay soo gudbin doonaan soo jeedintooda iyaga oo sii marin doona saldanada Cumaan marka la dhameystiro waa soo jeedin macquul ah mid caqligal ah oo dheelitiran waxaana si xoog leh ugu talinaynaa in Mareykanka uu ka faa'iideysto fursadan ayuu Baqa hadalkiisa ku yiri haatan daawadayaal waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabeyn jirnay alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh oo ka dhacday waddanka Britain haweeney muddo 20 sano ah aan ku celiyay mar kale muddo 20 sano ah dhakhtar ahaan u shaqaysanaysay hadda waa dhakhtar iyo waddanka Britain oo nidaamyada adag ay ka jiraan oo dhanka la xiriira caafimaadka haddaba aynu eegno warbixin amuurahaasi ku aadan oo warbaahinta waddanka Britain ay qorayso haweeney ayaa waxa leeyahay waxay ku shaqaysanaysay muddo 20 sano ah dhakhtar gaar ahaan cudurrada xagga maskaxda inay daaweyso waxa loo yaqaano psychiatrist waxaana la sheegayaa in si qaanuunka ka baxsan ay u shaqaysanaysay bacdama aysan haysan baa la yiri wax shahaado ah oo arrintaasi ay u lahayd ama khibrad waxa la sheegayaa in haweeneydaasi lagu xukumay xabsi waxaana la amray in ay bixiso lacag 100,000 oo giniga sterlinka ah oo si qaldan ay u heshay haweeneydan waxa lagu magacaaba Zoria Alemi waxay ku dhalatay waddanka Iran laakiin qoyskeeda ayaa waxay u guureen magaalada Auckland ee waddankaasi New Zealand horraantii 9-meeyadii halkaasi oo ay ku guul daraysatay inay hesho shahaadooyinka bachelorka dhanka caafimaadka iyo kuwa qaliinka laakiin waxay jeclayd dhakhtar inay noqoto si kastaba ahaatee Alemi ayaa waxa la sheegayaa iyadoo aan ka quusan riyadeedii in bartamihii 9-meeyadii ay markaasi qoyskeeda haddana u soo guureen dalka UK si ay uga faa'iideystaan qawaaniinta suuqa barwaaqa sooranka oo kaasi oo meesha ka saaraya in dhaqaatiirta shuruudo adag lagu xiro haddii qofkaasi uu ka soo jeedo waddan kale oo ka tirsan barwaaqa sooranka caadi ahaan
waxaa laleeyahay dhaqaatiirta dibadda ka timaada iyo shahaadooyinka waxaa lagu eegaa imtixaanaadka loo yaqaano PLAP oo ah imtixaanaad dhanka caafimaadka laakiin dukumentiya been abuur ayay samaystay baa haweeneydaasi taasi oo sheegtay in markaa ay ka samaystay gudaha waddanka Britain waxaana leeyahay muddo 20 sano ah ayay si dhakhtar ahaana u shaqaysanaysay oo dhakhtar feega dhacdadan ayaa waxay shaki gelisay baa nidaamka hubinta xirfadaha caafimaadka ee dalka UK waxaana hadda laga shaqeynayaa bal in la adkeeyo shuruucda la xiriirta ogolaanshaha dhaqaatiirta ajnabiga ugu dambeyntii haweeneydaas ayaa waxaa leeyahay xabsi wax u madatay in 20 sano beenta ku shaqaysanaysay waxa walba la arkaya dunidan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo